السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن wanaagsan idil hantiinba ku soo dhawaada W3 tag waxaan idin soo diyaariyay oo aynu qaadan doonaa HTML list ama HTML lists sida website-kaaga cusub ee aad dhisayso gacanta ku hayso sidii aad u gelin lahayd HTML list ama website-kaaga hore loo dhisay sida aad u gelin lahayd HTML list. waxaan qaadan doonaa HTML list maxay tahay imisa qaab ama imisa nooc ayaa HTML list loo geliyaa website iyo muhiimadda ay leedahay ayaynu sharxi doonaa. kadib waxaanu si practical ah u qaadan doonaa sidii aynu u gelin lahayn HTML list. videoga markaad dhammaysato waxaad si buuxda aad aqoon buuxda u yeelan doontaa HTML list sida loo geliyo. marka aynu bilaawno sharaxaadda. HTML list maxay tahay? HTML waad garanaysaa, waxaa lagu daray on list. listi waxaa la yidhaahdaa wax alla wixii u baahan in la list gareeyo ama lis hoos dhigo. listigu wuxuu noqon karaa magacyo, names of persons, names of places, objects. wuxuu noqon karaa magacyo dad, magacyo meelo ama magaalooyin, nambaro. marka wax alla wixii u baahan in lis hoos dhigo oo la list gareeyo. waxaa laga yaabaa waxyaabo xiriir leh related items ama names, waxyaabo xiriir ka dhexeeya oo u baahan in la list gareeyo sida magacyo oo kale, magacyo dad, magacyo meelo ama nambaro. runtii HTML list aad bay muhiim u tahay. website ka maarmaana ma jiro, company ama business ka maarmaana ma jiro list in loo sameeyo. without lists, creating a well-structured and easy to follow content on a web page could be difficult. haddii HTML list aanay jiri lahayn, in la sameeyo ama la dhiso website nidaamsan oo qofka website-ka akhrisanaya ee macluumaadka iyo information-ka uga baahanna waa ku adkaan lahayd inuu si sahlan ula socdo macluumaadka website-ka ku jira. waayo website-ku mar haddaanu HTML list lahayn, it means like qoraal fara badan oo meel uu ka bilaabmo iyo meel uu ku dhammaado toona aan lahayn oo isdhex daadsan. laakiin HTML list waxay saamaxday in wax alla wixii related-ka ah ama wax alla wixii information-ka xiriirku ka dhexeeya wada socda in si gaara loo saaro. goormaa la isticmaalaa? maxay baahida keentaa? HTML lists are used for grouping related items on a web page. HTML list waxaa loo isticmaalaa marka la rabo in la group gareeyo ama la isku aadiyo ama hal meel la isugu geeyo waxa la wixii xiriirku ka dhexeeyo. masalan magacyada israacsan oo kale, magacyada dad baad rabtaa inaad sheegto inaad list gareyso, marka waad israacinaysaa, waad group gareynaysaa. baahida noocaas markay jirto ee website-kaaga rabto inaad geliso ayaa la isticmaalaa HTML list. marka HTML waxay leedahay saddex qaab ama saddex nooc, waa saddexda ugu caansan ee badanka la isticmaalo oo loo geliyo website-ka HTML list. HTML offers three ways to do list. qaabka koobaad waxaa la yidhaahdaa unordered list, ka labaad waxaa la yidhaahdaa ordered list, ka saddexaadna waxaa la yidhaahdaa description list. marka saddexda qaab ayaa ugu caansan markaad rabto list inaad geliso website-kaaga. insha Allah mid walbana gaar baynu u sharixi, mid walbana waanu isticmaali doonaa, tusaalayaal baynu ka bixin doonaa. marka ka ugu horeeya oo kale aanu isticmaalno oo ah unordered list, waa listigii aan orderka lahayn. aan furano code editor-keenii, kii aan waan isticmaalay Sublime buu ahaa, aan furto. waxaa soo deji website-keenii iyo page-keenii aan soo furano, desktop-keenii oo yaalay index. okay, code editor-keeni haddaynu tagno halkii inoogu dambeysay, waxaynu gelinay ama aynu soo qaadanay sida list loo geliyo. ka listiga hoostiisa tag. unordered list wax yar intaan isticmaalno, tusaale yar aan ka bixiyo. listiga aan orderka lahayn oo micnaheedu tahay waxaad rabtaa inaad list gareyso waxyaabo, laakiinse muhiimad kuma laha kala horreysiintiisu. markastaad rabto inaad list geliso website-kaaga oo kala horreysiintooduna aanay muhiimad ku lahayn, tusaale ahaan masalan wadamada qurbaha kale lagu nool yahay, dadka cadaankii waxay sameeyaan
groceryga markay tagayaan ama Walmart oo kale dukaamada laga adeegto waxay sii qortaan liiska waxyaabaha ay u baahan yihiin kole dadkeena Soomaalida ma naqaan inagu ma sameeyno مثلا dukaamada halkan ugu caansan oo kale aanu ka adeegano waxa kamid ah Walmart marka ay tagayaan warqad bay ku soo qortaan liiska waxyaabaha ay rabaan marka sidoo kale inuu sameeynaa مثلا waanu adeeg taganaa grocery store kan taganaa waxaad rabtaa inaad sameysato maanta shaah marka dukaanka tagaysaa alaabta soo iibsanaysaa shaah lagu sameeyay sida caanihii sonkortii biyihii iyo caleentii iyo xawaajigii wixii lagu carfinay marka warqadda markaad sii qoranaysaa liiskaaga aad sameysanayso ma oranaysid marka dukaanka tagto sonkorta ugu hor iibso shaaha ugu hor iibso caanaha ugu hor iibso qaabkaas uma qorayso liistigaaga waayo muhiimku ma kala laha sequence kooda iyo qaabka ay isugu xigaan muhiim ma laha maadaama hadhow markaad soo iibso guriga aad ku soo wada celinayso kala horeysiintoodu muhiimku ma laha markaad store-ka gasho ama dukaanka kii kugu soo horeyn baad soo qabanaysaa markasta orderka caynkaas ee kala horeysiintoodu aanay muhiim ku ahayn waxa la isticmaalaa unordered list waa listi aan kala horeysiintoodu muhiim lahayn ka ku xigaynu qaadan doonaa asagana marka kan aynu sameeyno marka inteenan sameyn waxaanu ka horeysiinaynaa ciwaan yar oo xoogaa far waaweyn marka waa soo qaadateen sida ciwaanka farta waaweyn loo sameeyo waxaanu H1 H2 H3 ila H6 baa la isticmaalaa marka H2 waa inuu isticmaalo marka H2 asaga ku soo saaray ku dhufo ama enter dheh marka intii hore tusaale ahayd shaaha ku saabsaneed marka hadda waxaan rabaa inaan geliyo midalan waxaad u shaqeysaa wasaaradda waxbarashada ama waxaad tahay maamulo iskuul ama macallin baa tahay marka maamulihii ama maamulkii iskuulka waxay ku dhahaan waxaad website-ka soo gelisaa liiska ardayda klaaska 8aad marka waxaan rabnaa liiska ardayda klaaska 8aad dhigata klaaska 8aad ardayda dhigata oo dhan qaabka ay u kala horeeyaan muhiim inoo maaha waxa la rabaa liiskooda guud in la ogaado marka ma kala jeclan keen doona horeysiinana kaba soo qaad waxa dhigta klaaska 8aad 5 arday 5 arday liiskooda ayaan rabaa inaan geliyo marka ciwaanka aan ka dhiga marka liiska ardayda klaaska 8aad liiska ardayda fasalka wada fasalka 8aad okay marka halkan tag soo deg marka intaas ciwaan hayno ahaato waa liiska ardayda fasalka 8aad waa ciwaan far waaweyn marka waxaan rabaa liiska inaan geliyo liiska aan rabaa inaan geliyana waa liiska aan order lahayn oo aan muhiim ahayn kala horeysiintooda marka waxa la isticmaalaa waa u calaamadeenna qor angle bracket ul kasaga ku soo saaray markiiba ku dhufo ul macnaheedu ama waxa loo soo gaabiyay waa unordered list udu waa unordered l-tuna waa list waxay hal mar enter dheh soo aan hoos u kala dejiyo marka labadan macnaheedu waxa waa ul waa unordered list ayaa halkan ka bilaabmaya halkanna waxa ku dhamaanaya unordered list marka intani it defines waxay u qeexdaa ama browserka u sheegaysaa start of the listigu halku ka bilaabmayo waxay u sheegaysaa browserka sida Google oo kale halkan laga bilaabo oo ul tan ah iyo halkan ul tan oo kale inta u dhaxaysa waa list aan order lahayn marka labadan si aad kuwa kale ugu qaldamin waxay u sheegaysaa browserka halka laga bilaabo iyo halkaas ugu dambeyn ama halka wuxuu ku dhamaadaa inta u dhaxaysa waa list aan order lahayn marka markiiba inta ha ilaawin waxaanu nidhi wax walba waxay ku bilaabmaan opening tag sida ul iyo closing tag marka waxaan sameynaynaa liski magacyada klaaska ardayda 8aad maadaama listigu aanu order lahayn waxa la wixii aan isku xigitaankooda muhiim ahayn ma laha iyagu number ma yeelanayaan waxaad kale ku xasuusan kartaa waxa la yiraahdaa bulleted list waa listigii bulletka laha ama dhibcaha laha ama xidigaha yar oo kale number ma soo galaya meesha marka waxaan tagan calaamadeena oo qoraynaa underscore
ama waxa la angle bracket tan waxa taabanaysaa li asaga ku soo saaraya ku dhufo tan aan sharaxno li waxa weeye list l2 waa list idana waa item waa list item waa list gareynta item iska aan rabo inaan list gareeyo halka dhaxdan waxa la geliyaa wixii aad rabtay ama magaca aad rabtay ka soo qaad magaca ardayda classka 8aad magacayga ugu horeysay Kamaal Badhe marka li waa list of item halka dhaxdan waxa la geliyaa magaca li dana waa lagu xiraa waa closing tag magaca hadii aan ka reebo مثلا kama masax intani waxay u dhigantaa li dan iyo li da kale waxay u dhigmaan hal dhibic oo kale marka rabto listiga ugu horeeya hal dhibic inaad raaciso intana u dhiganta marka magaciisa ku qor sorry Kamaal Baneri marka waa itemiska aan rabay listka magaci koobaad magaca labaad waa sidoo kale asna waa inteedu mad qoraysa waa li dan maxad qortaaba Adam Boqor Adam Sohid li magaciisa saddexaad asna li hada qortaa saa kugu daray inta kale magaca saddexaadna waxaad ka dhigtaa Maxamed ka dhig Maxamed ka afraadna li qorayana ka afraadna Faarax Badhe Faarax asamaayna inta soo dhansi wad ka wala 3 4 5 geersi ka shanaadna waxa weeye marka saasa ku soo saaray oo qasamayna qorto waad kala gareynaysaa dhaxdoodana ku qor magaca rabtay Jaamac Badhe marka shanta arday ayaa dhigata classka 8aad waxaan rabaa magacyadooda inaan liskareeyo qaabkana loo qoro loo liskareeya marka si aanad ugu confuse garoobin wax yar sharaxada ku noqon li dan iyo ult lagu bilaabay maadaama ay farabateen oo la soo celceliyay ult hore waxaanu niri it defines the start of the list waxay qeexdaa oo browserka ama Google oo kale waxay u sheegaysaa halkan uu listigu ka bilaama ama waxay halkan ka bilaama ilaa ul-tan u dambaysa waxa weeye unordered list waa list aan order lahayn marka Google ama browserku markii wuxuu garanayaa listkan inaan order lahayn oo aanu number lahayn oo kala horeysiintiisu aanay muhiim ahayn marka ul waxaanu niri waa opening tag ult kalena waa closing tag browserka waxay u sheegtaa halkan laga bilaabo ilaa halkaas ugu dambeyn wuxuu u dhaxeeyaa waa order aan list lahayn marka koobaad ee ugu horeysaba ee aad rabtay website-kaaga inaad geliso list aan order u baahnayn waxa kugu horeeya talaabada ugu horeeya qaadaysa maskaxdaada ku soo degdegaysa waa inaad marka ugu horeysaba inaad u sheegto Google listigan aan order lahayn si aad ugu sheegtana maxaad sameynaysaa waxaad isticmaalaysaa ul baad ku furaysaa ul-na waad ku xiraysaa marka listiga sida u gelisana waxaad isticmaalaysaa li oo ah list item marka magacyada dhexe oo dhan hadii laga reebo magaca Kamaal Adam Maxamed Faarax Jaamac hadii laga reebo li da koobaad iyo li da ku xidhmaysaa intaas waxay u dhigantaa hal dhibic marka waxaan malayn intaas ma adka ma garan waayist maadaama ay soo noqnoqoto waxaan rabaa inaad ku confuse garoobin li opening tag iyo li oo closing tag hal dhibic bay u dhigantaa inta kalena waa magacyadii you see how simple it is marka ku confuse garoobin marka save dheh website-keeni tag refresh dheh waa aragtaan inay inoo soo galeen magacyadoo dhami sideen u rabnay waliba ciwaanka waxaanu ka dhignay H2 waa liska ardayda fasalka 8aad waa Kamaal Adam Maxamed Faarax Jaamac shantan arday ayaa dhigta 6 ka dhigay session ardaydan ayaa dhigata classka 8aad marka hadii Kamaal horeeyo hadii Jaamac horeeyo ma kala jeceli kala horeysiintooda maamulka iyo wasaaradda waxbarashadu waxay iga rabtaa ardayda classka 8aad dhigata oo dhan inaan soo list gareeyo marka Google markaad u sheegto inaanu listigan order lahayn wuxuu raacinayaa dhibcahaas
marka intaas waxaan kaga gudbanaa listiga aan orderka lahayn ee loo yaqaano unordered list. waxaan ku xigsiinaynaa listiga leh listi loo yaqaano ordered list waa listigii orderka lahaa. listiga orderka lihi wuu ka duwan yahay kii imkaan soo sameynay ee ahaa unordered list. Ordered list will use different scheme for numbers to list your items. listiga orderka leh waxaa muhiim ku ah kala horeysiintiisa. haddii kala horeysiintana aad ka tagto natiijadu sidaad u rabto uma soo baxayso. aynu ku noqono tusaalaheeni shaaha karintiisii. masalan dukaankii baad tagtay Walmart oo kale, waa soo adeegatay alaabta, waad soo iibisay sonkortii, shaahii, biyihii iyo caleentii. guriga markaad timi oo aad rabto shaahi inaad kariso, haddii aad tidhaahda ka waran waxaan ugu horeysiinaya kildhiga waxaan ku shubayaa sonkorta, may ku suurtagelaysaa? sonkorta way kaa gubanaysaa soomaa, natiijaduna sida aad rabto uma soo baxayso. marka maxaa muhiim ah in aad kala horeysiiso oo si kala horeysa oo 1 iyo 2 iyo 3 leh inaad processka u samayso. markaad rabto website-kaaga inaad soo geliso wax u baahan kala horeysiin ama ay muhiim ku tahay inaad kala horeysiiso, waxaa la isticmaalaa ordered list. marka waxaad sameynaysaa kiliga dabka saaraysaa, biyahaad ku shubaysaa, sonkortaad ku shubaysaa, shaaha, processkii oo waxaad maraysaa nidaamsan oo kala horeeya. hadhowna natiijadu waxay noqonaysaa natiijo saxa oo shaaha cabi kartaa kuu soo baxaya. marka waxaan rabnaa inaanu iminkana sameyno list order leh. aan ku noqono code editor-keeni, halkan tag. tusaalaheeni horan baynu ku soconaynaa insha allah. hadda waxaan rabaa inaan geliyo wasaaraddu waxbarashadu waxay iga soo dalbatay ama maamuluhu iskuulka wuxuu yidhi maadaama iskuulka web developer aanu ahay, wuxuu iga soo dalbaday liiskii ardayda fasalka 8aad ee aad soo gelisay magacyadooda. waxaan rabaa hadda inaad soo geliso siday u kala sarreeyeen ama siday u kala horeeyaan. ardaygii 1ka galay, ardaygii 2ga galay, ardaygii 3ga galay. marka meesha maxaa ka cad in kala horeysiintu ay muhiim tahay. marka listigaas aynu gelinaynaa. ciwaan aynu sameynaa haddana. waa taqaanaa in la ilaawan ciwaanka farta waaweyn waxaan isticmaalaynaa H2 ama H1 ama H3 kolba ka doonto. qor calaamadii angle bracket then H2. inta kale asaa kuugu daraya click dheh ama enter. ka dhexda waxaan ku qorayaa ardayda ugu sarreysa oo kale, ardayda ugu sarreysa fasalka 8aad. ugu sarreysa fasalka 8aad. then halka ugu dambeysa tag enter dheh si aan space u tagno. marka waxaan rabaa inaan ardayga ugu horeeyay number 1 ka haageliyo, ardayga ku xigay, ardayga ku sii xigay. marka aad isticmaalayso waxaanu kii hore waa inaad marka ugu horeysaba ayaad ku fikirto list inaad geliso. marka ugu horeysaba waa inaad Google u sheegtaa ama browserka listiga uu noocu yahay. waa inaad u qeexdaa listigu ma unordered list ba, waa list aan order lahayn mise waa list order leh. marka aynu u sheegno Google oo aynu u qeexno listigu wuxuu yahay, halkuu ka bilaabmayo, halkuu ku dhamaanayo. marka waxaa la isticmaalaa list order leh markaad rabto inaad sameyso OL. waa ordered list, oodu waxay u taagan tahay ordered alternate list. kaas ku soo saaray ku dhufo enter dheh si xoogaa inuu kala fogeeyo. marka OL2 it defines the start of the list. waxay qeexdaa OL2 ugu horeysa listigu halkuu ka bilaabmayo iyo listigu nooca uu yahay. intan u dambaysa oo ah closing tag iyana it defines the end of the list. waxay qeexdaa oo cadeynaysa listigu halkuu ku dhamaado. then waxaanu isticmaalaynaa the same li oo list item ah oo listka itemiska. marka horena dhibic buu ka dhigayay, markana wuxuu ka dhigayaa nambaro. okay, marka waxaan isticmaalaynaa the same oo angle bracket li oo ah list of items, listka itemada aan rabo. then waxaan qorayaa ardayga ugu horeeyay kabadhig waxaa fasalka number 1 uu galay Faarax badhe. Faarax waa number 1 ah. kan tag ugu dambeysa enter dheh.
ardayga labaad ee ku xiga hadana waa li waxaad ku xigsiisaa aadan badhe aadan ba asna number 2 ahaa halka u dambaysa tag enter dheh ardayga saddexaad li waa list of items magaciisa qor waxaan ka dhigtaaba jaamac badhe jaamac sorry jaamac okay marka saddexda arday ayaa classka ugu sareeyay oo 1 iyo 2 iyo 3 kala garay marka aan save gareyno website-keena tag refresh dheh waa aragtaan ardayda ugu sareysa fasalka 8aad oo waxa la socda imika number 1 number 2 iyo number 3 kii hore wuxuu ahaa dhibco laakiin kani waa number wata waxa la yiraahdaa ordered list waxa kale ku xasuusan kartaan numbered list waa listigii numberka lahaa waayo waxa muhiim ah ardayga fasalkan 1ka uu galay inaan sheegno ardayga 2ga galay inaan sheegno ka 3ga galay iyo sida uu kala horeeyaan marka listigana asna qaabkaas loo geliyaa marka wax yar aan ku noqdo oo laga yaabaa inaad isweydiiso tiraahdo kii hore waxaa tidhi li waxay u dhiganta hal dhibic kan haddana lid baa la soo celiyey oo list item ah haddana 1 bay noqotay marka trigo iyo farsamadu wax bedelaysaa waxay ka imanaysaa marka horeba inaad ku bilowdo kii hore waxaan idhi ul waa unordered list intaasaa markiiba bedelaysa oo u sheegaysa google inaanu listigin order lahayn oo aanu meesha number soo gelayn marka lidani waxaa dhibicda ka dhigay ul-ta ka horeysa ayaa u sheegtay browserka inaanu listkani order lahayn oo meeshana aanu number iyo isku xigtaan aanay muhiim ahayn halkana waxaan ka horeysinay ol oo listiga waxaan ku bilaabnay ol waxaan u sheegnay google in listigu order uu leeyahay oo u baahan yahay 1 iyo 2 iyo 3 in la soo dhigo that's why uu markaasna dhibicda u qaadatay markana uu numberada u qaatay waxaan ku xigsiinaynaa labada hadaynu kala fahnay waxaa jira mid saddexaad oo asna la yiraahdo description list waa list description leh ama qeexitaan uu la socdo waxa kale lagu xasuusan karaa oo ku xasuusan kartaa dictionary list waa listigii sida dictionary-ga ahaa dictionary-ga marka kelmad aad akhrisanayso ama kelmad marka la qoro waxa hoos yaala ama ku hor qoran kelmadaas macnaheedii marka description list html waxay leedahay description list qaabka dictionary-ga oo kala ah mesela magac baad qoraysaa magacaasa sharaxaad ka sii bixinaysaa waa qaabka dictionary-ga oo kala ah marka asagana aynu isticmaalno oo aan eegno tusaalaheeni hore ardaydan baan ku soconaynaa marka ciwaan aan u sameeyo markana waxaynu ardayda classka 8aad waxa la rabaa magacoodii haddana waxa la rabaa sida uu kala horeeyeen haddana maamulka iyo wasaaradda waxbarashadu waxay ka soo codsadeen maadaama tahay web developer iskuulka waxay ku yiraahdeen saddexda arday ee classka 1ka darajada sare keenay 1ka iyo 2 iyo 3ga taariikh nololoodkoodii ka soo hadal ama mid ama laba mid kamid ah marka maxaa la rabaa markan maxaa ka cad meesha in qeexitaan iyo description iyo xoogaa faalayr ay soo galaysa meesha list noocaas marka aad rabto inaad sameyso waxaa la isticmaalaa description list marka halkan waxaanu leenahay ciwaan kale oo far waaweyn aanu gelinaynaa haylaawin sida loo geliyo waa soo qaadatay angle bracket h2 ku soo saaraya marka enter dheh halka dhexdooda waxaanu gelinaynaa ciwaan uga dhiganaa taariikhda ardayda fasalka ugu sareysa taariikhda ama taariikh nololeedka ardayga ugu taariikh nololeedka ardayga ugu sareeya fasalka 8aad fasalka 8aad okay halkan tag enter dheh marka waxaan rabaa mar walba ha ilaawin listka markaad ku fikirtaba intaanad bilaabinba waa inaad u sheegtaa
Google ama browserka listiga aad rabtaa noocu yahay ma unordered list miya ma ordered list miya ma description list miya. Marka description list uu ka yar duwan yahay kii hore waxaa la isticmaalayay UL iyo LI ama OL iyo LI kan laakiinse waxaa la isticmaalaa saddex wuxuu kaloo ka duwan oo مثلا DL iyo DT iyo DD waxaanu kala sharxi doonaa mid walba markaan isticmaalayna inaan sharxi doonaa. Marka hore aynu furanno aan u sheegno Google ama browserka listiga soo socda ama website-kayga aan rabaa ee halku ka bilaabmay iyo waxa uu yahay aan u qeexno. Waxaan ku furaynaa angle bracket waa DL saga ku soo saaray ku dhufo markiiba enter si inuu kala fogeeyo maadaama dhexdooda aynu wax gelinayno. Marka DL ta hore it defines the start of the list and the type of the list. DL ka hore waxay sheegaysaa listigu halku ka bilaabmayo oo halkaas opening tagas iyo halkan oo closing tag. Also waxay u sheegaysaa browserka listigu noocu yahay. Imka listigu waa DL, D waxay u taagantahay description ama definition, L waa list, waa listigii qeexitaanka uu la socday ama sharaxaadu ay la socotay. Marka dhexdiisa sidii kuwa hore aynu gelino DT aan gelino waxa la isticmaalaa angle bracket tan DT saga ku soo saaray ku dhufo. DT macnaheedu waa data term ama data text. waa mesela magaci oo kale daatada aad rabto listiga inaad geliso ee aad sharaxdo waa qoraalkeedii ama magaceedii ama termkii waa data term ama data text badhe. waa mesela magaci oo kale ama wixii aad rabtay inaad sharaxdo haddii uu ahaa magac, haddii uu magac qof ahaa, haddii uu magac meel ahaa, haddii magac magaalo uu ahaa, wax alle wixii aad rabtay inaad sharaxdo sida magacadeena horeba listiga aan ugu bilownay. halkan waxa la data term ama data text marka wixii aad rabtay inaad sharaxdo. waxaan rabnay ardayga ugu horeeya klaaska ugu sareeya inaan taariikh nololeedkiisa aynu sharaxno. marka ardayga ugu horeeya kuma ahaa Faarax banu ka dhignay ka taaba Faarax. okay marka DT daas waxay u dhigantay waa data term waa wixii aan rabnay inaan sharaxnay. marka aad rabto sharaxaadii hadda waxa aad istabkaad imika maraysa wax sharaxaadii inaad bixiso si aad sharaxaad u bixiso imikana waxaan isticmaalaynaa waxa loo yaqaano DD macnaheedu waxa weeye waa data definition oo kale ama datadii meesha aad gelisay magacii iyo wixii aad gelisay sharaxaadoodii ama data description. marka angle bracket waa DD asaga ku soo saaray ku dhufo. marka Faarax taariikh nololeedkiisa baad halka ku sharaxaysaa oo sharaxaad ka bixinaysaa. marka wuxuuna inuu iska nidhaahno kulli casharadan ma soo diyaariyeen igara noqdo hadii wax dhaafaan. waxaan nidhahnaa Faarax waa wiil 25 jir ah wiil 17 jir ah oo ku dhashay magaalada Burco dugsiga hoose dhaxana waxbarashadiisii dugsiga hoose ee dhaxana ku soo qaatay magaalada Burco ama waxbarashadiisa waxbarashadiisana ku fiican haddana klaaska fasalka 8aad wanka u galay. inta uu soo leeyahay ma khasab ma ina macna sameysay ina fahantaan ma raba. marka save de website-keenu ku noqo refresh de waa aragtaan taariikh nololeedka ardayga ugu sareeya fasalka 8aad waxaan idhaa Faarax waa
waa wiil qoraalkan khaldan u malayn waxbaan ka tagtagi waa wiil 17 jir ah oo ku dhashay magaalada Burco waxbarashadiisana ku fiican haddana fasalka 8aad wanka uu galay marka saddexda list ayaa HTML ugu caansan oo badanka la isticmaalaa laga yaabo waxyaabaha yar kale dheeraada optional inay jiraan waxyaabaha qaar badanka aan isleeyahay waa optional inaan ka boodo ay u badan tahay waayo web development hadaa rabto inaad barato qof web developer oo wax walba wada yaqaan ma jiro waxyaabaha optionalka ah oo ka boodana isku day inaad raadsato the skill am xirfada ugu fiican ee qof web developer uu bartaa waxa weeye markuu stack ku noqdo meel inuu yaqaan sida wax loo raadsado hadii wax cusub ay ka hor yimaadaan inuu markiiba la jaan qaadi karo waxyaabaha kale optionalka hadii base ku dhismo waxyaabo badan aad aqoon baa ka soo bixi doona laakiin base ku hadii uu ku dhismo oo inta default ka ah taqaano wax kale kuma dhibayaan markiiba waad sameyn kartaa marka saddexda qaab ayaa ugu caansan HTML list insha Allah waxaan rajaynayaa inaad fahanteen insha Allah wixii aydan fahmin comment-ka igu soo qora hadii Ilaahay dhaahdo hadii aad tahay markii koobaad ee channelka aad soo booqanaysan insha Allah subscribe comment share and text asxaabtaada kale soo text garee la share gareecda la cidii danaynaysa dhalinyarada asxaabtii hore ee ugu xidhneeda insha Allah ka qayb qaata channelka maadaama uu cusub yahay inuu inoo faafo social media si geliyo si inuu dad badan u helno waayo waxay keenaysaa dhiirigelin it's really it's going to motivate me insha Allah aad u mahadsantiin waa inoo iyo fiidowga dambe